Assalaamu calaykum. It's Mama Layla. Maanta waxaan decision ku gaaray, qaraar ku gaaray inaan af Soomaali ku duubo. Waxaan idinla hadlayaa af Soomaali, marka Soomaaligayga waa iska yara ma aragtay. Wuu fiican yahay sida runta ah, laakiin um, waan yara qasbanayaa. But anyway, decision-kan qaraarkan waxaan u gaaray waxay tahay in Soomaalidii la ugaarsanaayo oo aniga ka mid ahay. Sanadkii markuu ahaa 2016 dowladda Mareykanka waxay gelisay microchip wax la yiraahdo. Wax chip la yiraahdo. Surgery baan aaday markaas chip. And Englishka waxaa lagu yiraahdaa non-consensual human exploitation or human experimentation. Waxay ka taagan tahay aan adigoo lagaa qaadan idni ama ma aragtay adigoo fasax lagaa qaadan in lagugu tababarto. Waa dembi aad u weyn, waa dembi ma aragtay dunuubtan aan caalamka international lawga ee kasoo horjeedo. Qaanuuniyo badan oo international law baa kasoo horjeedo waagii Hitler uu ku suubiyey kuwa dadkan Jewishka ah concentration camp intuu geliyay ay ku tababarteen kuwa Naziga waxaa loogu yeeraa Nuremberg Code. Nuremberg wuxuu ahaa dhakhtar ka mid ah kuwii Jarmalkii Naziga ku tababartay oo lagu ciqaabay sanadka markuu ahaa 1947. Marka waxaa ka soo saareen markii Nazi Germany la defeat gareeyay. Markii Nazi Germany la defeat gareeyay qaanuunkan baa laga soo saaray, laakiin sanadadan dambe sida u badan tahay waxaa la ogaaday in Mareykanka naftirkooda ay ku tababaran jireen dad badan oo ka mid yihiin dadka madowga ah, dadka muslimiinta ah, dadkan ma aragtay ay ugu yeeraan marginalized community ama dadkan laga tira badan yahay oo la dulmo si systematic ah loo dulmo. Dadkaas ay Soomaalida ka mid yihiin dad madow aan nahay, dad muslim baan nahay, dad waxaan nahay wadankan immigrants ku ah in muddo hadda aan badnayn joogay, laakiin la necab yahay sida runta ah. Marka aniga focuskayga ma aha inaan Soomaalida aan dembi u yeelo, laakiin focuskayga waxaa weeye inaan educate gareeyo dadka aan wax tacliin ah, wax cilmiyeysan aan u soo gudbiyo sida systematiga looga baxsan lahaa, because cilmigu waa power. Haddaad aqoon leedahay haddaad aqoon leedahay aad ilaahay isku xirto waxaad ka hortagi kartaa dhibaato walbo kaa hor imaata sida ugu fiican ayaad uga hortagi kartaa. Aniga dhibaatadan igu dhacday waa dhibaato caadi ma aha, waa mucjiso aad u xun. Sanadka markuu ahaa 2016 ayay microchip gelin ilaa iyo maanta waa 9 sanadood. Soomaalida sida runta ah Soomaalida hore lama mid aha. Maanta Soomaalida si aad baa looga faa'iideystaa. Aniga qudhayda waxaan dareemay markaan Seattle u soo guuray, reer Los Angeles baan ahaa. Markaan Seattle u soo guuray waxaan ku soo talagalay in meel Soomaali ku badan tahay inaan u soo guuro markay dhibaatadan igu dhacday. Waxaan ogaaday dhibaatada ugu weyn oo Soomaalida haysata inay qabyaalad tahay. Qabyaaladnimo in dhexdooda ay isku necab yihiin oo dhexdooda loo kala adeegsan karo si aad u fudud. weliba markay timaado dembiga qofka marka laga galaayo, markii qofka dembiga laga galaayo dowladda si cadeyn ah, si cadaadis ah rabta inay dembiga Soomaalida unfortunately dhexdooda la isku dhex adeegsadaa. Aniga ma aragtay case-kaygan waa case aad iyo aad xasaasi ah haddaan ka hadlo sida qabyaaladda loogu adeegsada. Aniga waxaan ka soo jeedaa reer Somaliland, laakiin hooyo waa reer Koonfur, waa reer Muqdisho. Aniga Soomaali way ii wada simantahay sida runta ah. Aniga qof wax bartay baan ahay. Shahaadada jaamacadda waxaan ka qaatay sanadka markuu ahaa 2006 Ohio State University oo Columbus, Ohio ku taalo. Haddana masterskaygi markaan anigoo Los Angeles jooga ayaan diyaariyey masterskaygi oo management information system ah. And shahaadadayda bachelorskana waa biology, human physiology specialized. Marka waxaan idinku sheegayaa intaa ma aha inay faan iga tahay, waxaa weeye cilmigan aan soo bartay waxba iimuu tarin markaan dhibaatadan ay ku dhacday. Waxaan ogaaday haddaadan ilaahay ku xirneen waxyaabahan ay jaamacadaha dadka cilmigan jaamacadaha ay ku dhigaan waa cilmi ayaga ay diyaariyeen.
uguma talagalin siduu qofka marginalizeka isku difaaco cilmigu ayaga bareen siduu hadhow isugu difaaco aniga waxaan adeegsaday luqadda carabiga waxaan adeegsaday carabiga oo anigoo yar laysoo baray waxaan ku soo koray waddanka masar ilaahay kheyr ha sii hooyey aabba allah u naxariisto marka qur-aankii ayaan bilaabay inaan qatimo aan from cover to cover akhriyo qur-aankii aan kulligiis akhriyo ramadaankii hadda lasoo dhaafay markii ahayd 27 nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ree iigu yimaaday nuurkiisa iyo iftiinkiisa iyo hidaayadiisa ilaahay ayaan weydiista waxaan dhahay ilaahayo dhibaatadan aan ku jira adiga keliya iga bixin karta ramadaankan aan ka faa'iideysto ii gara inaan leylatalqadri bishan ramadaankan aan ka faa'iideysto habeenka markuu 27 ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam ree iigu yimaado farxaddayda ugu badneed bay ahayd laakiin waxaan ogaaday 5 cisho kadib haddana waxaa riye laygu tusay albaabka jahannam oo sidaa u ballaqan oo u furan subxaan allah dad badan la cadaabayo waxaan ka hadli kara ma aha cabsida iyo rucbiga aan la soo toosay ilaa iyo maanta ayaan xasuusanahay marka waxa igu dhacay aniga dhibaato yar ma aha marka shantayda salaadood igama tagaan alxamdulilah ramadaanka igama tago saan doonaha aan u labista waagi hore laakiin aniga dhuuxa ayaan muslimka ahaa weligay dhuuxa ayaan muslimka ahaa xataa waagan sababtoo ah waa sida laygu soo koriyey ilaahay kheyr waalidkayga ha siiyo anigan waxaan ahaa weligay the black sheep wax la yiraahdo dadka ma aragtay mar walba jecel inay khalifaanay su'aal badan la yimaadaano ma aragtay waxa marka loo sheego waxaan kan sameey ka kala sameey laakiin weligay dambi maan galin weligay crime maan suubinin xataa traffic ticket maraykan kuma haystin anigana maraykan waxaan ku noolahay in ka badan in ku dhow 30 sannadood waddankan waa ku soo koray basically marka dhibaatadan qof walbay ku dhici kartaa aniga gooni baan u deganaa Soomaali meelay degan tahay maan deganayn activist baan ahaa dadkan ma aragtay dadku u dooda xuquuqul insaanka ayaan ka mid ahaa qolooyin badan aan la shaqeeyay kuwaan la shaqeeyay waxaa ka mid ah HRC kuwa la yiraahdo Human Rights Campaign oo u doodaan xuquuqiinka dadka queerska ah dadka laga tira badan yahay iyo dumarka iyo waxyaabo badan u dood aniga sida runta kuwa idaba dhigtay waa dadkan Zionistka la yiraahdo qaanuun baan legislation baan si successful si aad iyo aad u guul badan ayaan u pass gareynay state Nevada Las Vegas waagan ku noolaa marka waxaad idaba dhigtay aniga waxaa i target garaystay kuwan conservative-ka la yiraahdo iyo kuwa liberals ko Hillary Clinton waxaan noqday dad qof u hadla oo ma aragtay spokesperson Stonewall Democrat oo ka mid ah LGBT-ga reer Las Vegas marka aniga og hadda Soomaalida dareenkay ka qabaan LGBT-ga hadafkayga maaha inaan ka hadlo LGBT hadafkayga waxaa weeye inaan ka hadlo arrintan aniga igu dhacday because qof waliba Soomaaliya ku dhici kartaa qof walaalkaabay ku dhici kartaa qof aad dhashay ku dhici kartaa adiga qudhaaday kugu dhici kartaa marka waxaan u soo furay account-kaygan inaan ku expose gareeyo aan banaanka u soo bixiyo crime-kan iyo dunuubtan bini'aadanka laga galaayo ee dowladda ka galayso si systematic oppression waxay yiraahdaan Maraykanka systematic oppression waa qofkii si dulmi caddaan ah oo la qarinayo looga galaayo oo la adeegsanayo xoogga ee dowladda Maraykanka leedahay oo dhan oo ka mid ah police-ka intelligence agency-ga kuwan sirdoonayasha iyo military-gaba because aniga waxay igu garaaceen wax la yiraahdo stealth weapon waa radiation waa shucaacaas oo ah microwave shucaac wuxuu ka dhex bixi karaa darbiyada wuxuu ka dhex bixi karaa meel waliba blockage ma qabto because
waa ma aragtay radioactive waa radioactive meel walibuu ka dhex bixi karaa gurigaaga adoo ku dhex jirta ayaa shucaacaas lagugu toorjar garay marka dowladda maraykanka dad badan bay sidan ku suubisay ay ka mid yihiin dadka activistka ah dadkan ay yiraahdaan whistleblowerska dadka dowladda u shaqeynaya oo soo qarxiyay oo sheegay danuub badan ee dowladda dadka ka gashay sida danuubta sida war crimes oo kale waxaa dadkaa ka mid ah Julian Assange oo mar dhow marka aniga indhaha waxay ii furmadeen sanadkii 2016 inaan ogaaday Maraykan inay ahayn dowlad ma aragtay democracy jirto waxaan ay illusion wax la yiraahdo waa khayaali dadka waa been loo sheegay freedomka iyo waxaan ma jirto abadan ma jirto aniga ifiiri qof wax bartay ayaan ahaa cilmi leh shaqaysta wadankan weligay dambi maan galin weligay qaanuun maan jabinin haddana way daba dhigteen because activism baan galay waxaan u maleeyay in freedomka iyo waxaan la sheegay inay run tahay marka aniga waxay igu suubiyeen wax la yiraahdo aniga waxay igu sameeyeen wax la yiraahdo scapegoat waxaa laga ka taagan tahay af Soomaali alla baltalow af Soomaaliga maxaa lagu yiraahdaa escape waxay ka taagan tahay qof ma aragtay si loo dulmaayo asagoo qofkaa dambi galin laakiin looga raali noqdaya looga aarmagsanayo qof kale uu la socday dambi uu galay because qofkaa kale ayaa xoog ayuu leeyahay qofkanna xoog ma laha marka qofkan baa loo adeegsaday in ciilka looga baxsado qofkaa kale dambigiisi marka aniga taas baa igu dhacday dadka inta badan waxay yiraahdaan maxaa u qabsan weysay lawyer aniga qof wax bartay baan ahay research badan baan sameeyay lawyer walbuu isoo diiday qaasatan markay qoladan Zionistka Yahuudda ay daba dhigteen oo liberalska Hillary Clinton ayagay u badan yihiin kuwa support gareeya markay daba dhigteen lawyer wuu cabsaday qolooyinkii aan la shaqeyn jiray ayagaaba igu soo jeesteen because waxaan oo dhan way isku xiran yihiin markay kuwa Zionistka ku target gareystaan qof waliba saaxiib waliba lahayd waa been weliga ha aaminin qaasatan haddaa tahay activist waxaani waa been wax ka been badan dadkan ma jiro waa deception wax la yiraahdo dadkii ayaga igu sida runta dadka dhan inaan dhaliilo ma doonayo dad wanaagsanna way jiraan laakiin inta badan sida u badan yihiin dadkan activistka ama aragtay waa dad loo taliyo waxyaabahan ay sheegaanna waa waxyaabo loo soo dhiibo waa script ayay ka akhrinayaan marka aniga waxaan dhihi lahaa Soomaalida digtoonaada ka fiirsada ha aaminina weligiin xataa ha aaminina Soomaalida idinkula jirto activistka aniga dad badan oo Soomaali baa loo adeegsaday qaasatan dad waxa lacag badan baa la siiyay xataa qabiilkayga ay ka mid yihiin unfortunately qolo badanna waxay ugu awgaarsadeen qabya marka arrintan aniga ugu dhacday kuma go'na kaliya Maraykan Soomaaliya way ka socotaa waxaan maqlay maalin hore oday Soomaali ayaa Puntland inta laga soo qabtay ayaa dowladda Puntland ayaa waxay gacanta ka saartay UAE Imaaraadka ship ay leeyihiin ayaa odaygan wuxuu ahaa reer Djibouti asalkiisa laakiin Puntlandna wax aniga qoladiisa ma garanayo sida runta aniga qabyaalad layguma soo korinin because waxaan ka imaaday guri laba qolo ma aragtay mix qabiil ah marka aniga qabyaalad ma garanayo Soomaalida way ii wada siman tahay sida runta ah laakiin odaygan sheekadiisa aad ayay ii taabatay because intay markay qabteen waxaa la geeyay markab dhexda Indian Ocean ka dhexdiisa fadhiya ayay ku torture gareeyeen oo lagu xusuuqay in muddo badan sida u xusuuqayeen radiation iyo wax walba ugu suubinayeen asagoo waxay ka soo saar odaygii ay soo bedeleen ma aragtay mihirkii oo dhan ka tagay odaygiyo sida potato camal intay radiation ugu wadeen soo bislaaday oo maskiinka si xum loo soo galay subxaanallah marka sheekada aad bay ii taabatay waxaan ogaaday waxaan mind controlka le waxaa jirta operation CIA ay sameysay si qarsooni ah weligood qarsooni bay ku shaqeeyaan ee dad badan oo Maraykan ay torture gareeyeen xusuuqeen oo la oran jiray MK Ultra trauma based mind control qofkii maskaxdiisa sida loo xukumo ayaa trauma lagu suubinayaa waa la xusuuqayaa si aad qofki
korontaa lagu dhejinayaa qofkii waa electric shock baa lagu suubinayaa sida ma aragta qalqal loo geliyo maskaxdii oo dhan qalqal sidaa loo geliyo marka qofkii markuu traumada ku dhacdo ayaa maskaxdii la controlaya maanta qofkii ay microchip geliyaan waxay ku xiraan ay ku hoggareeyaan AI-ga ay ku sameeyaan wax la yiraahdo automated system AI ma aragtay AI-ga ayaa loo sheegaya qofka markay sida ugu xiraan chipkiisi ayaa leeyahay waxaa ku set garaynaynaa qofkan torture program marka AI-ga ayaa baranaya qofki behaviorkiisi markuu qofki behaviorkiisa barto in muddo ah bartaanay ku taabgareeyaan AI-ga ayay waxay leeyihiin siday qofkan behaviorkiisa u bedeli karnaa siday qofkan niyadda uga dili karnaa siday qofkan depression ugu ridi karnaa marka AI-ga aniga waxaan channelku soo furtay intaan cilmi u leeyahay waxaan dhibaatadan igu dhacday iyo waxaan experience u leeyahay iyo waxaan research ku suubiyey inaan idinla share gareeyo marka Soomaalida ha ku degdegina haddaad qof familigiina ka mid tihiin inuu qofkii mentally incapable yahay dhibaatadan hadday ku dhacdo sida badanna unfortunately Soomaalida waxaa nagu badan dad badan oo jaajuusiin oo dhexdeena ku jira lacagna ku qaata programmadana ka warhaya ogna dowladda inay si dulmi ah dadkan u baabi'inaysa laakiin lagu tababaranayo haddana loo adeegsanayo mental health crisis inuu qofkan leeyahay qofkan malaha mental health qofkan waa qof la victimize gareeyay oo lagu suubiyey programkan oo kale marka ogaada dad mental health u baahanna way jiraan marka qofka siday ku ogaanaysaa inuu mental health yahay qofka la sheekaysa dhagayso qofkan ma logic buu suubinayaa qofkan wuxuu Maraykan hadda way bedeleen APA-ga waa American Psychological Association way bedeleen shuruudihii qofkii mental healthka lagu ogaan lahaa sanadadan dambe because sanadadan dambe dowladda corruptionkeeda aad bay u badatay ayagaa ka dambeeya inay bedelaan marka ogaada waxyaabahan ka ogaan kartid waxaa ka mid ah qofka ma logic buu samaynayaa because lama aamini karo hadda APA-ga anaa kuu sheegayo waxyaabo badan oo corruption bay dowladda hadda si cadaan ah u samaynayaan qoladan Zioniskana ka dambeeya marka maanta intaan baan kusoo gabagabaynayaa salaamu calaykum qaybta labaad dhagey qaybta labaad waxaan kaga hadli doonaa nin yahuudiyo reer Israa'iil ah ayaa wuxuu qoray buug la yiraahdo ninka magaciisa waxaa la yiraahdaa Yuval Noah Harari marka buugga wuxuu kaga hadlay barnaamijyadan soo socda sanadadan soo socda until ma aragtay wuxuu kaga hadlay buugga 3 qodobood oo ah useless class wax la yiraahdo dadkan ma aragtay uselesska ah iyo data colonialism isticmaalka dayradaada iyo bioengineering waa very important buuggan waxaa la yiraahdaa Homo sapien ninka waa qof gay ah oo reer Israa'iil dadkan Jewishka Zioniska ah marka ayaga geegooda ma liibaan Soomaali baa dadka geegooda maskaxda la liido dadkooda maskaxda la way ilaaliyaan way qiimeeyaan marka ninkani wuxuu buugiisa waxaa la yiraahdaa Homo Deus, a brief history of tomorrow. Buuggan waxaa la publish gareeyay 2015ka. I highly recommend. Aadan ayaan u recommend gareyn lahaa. Buugga dadka Soomaalida, dadka consciouska, dadka wax bartay inay akhriyaan Englishka. Hadduu jirana qof Soomaali ku turjumi kara buugga in la turjumo aad iyo aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah wuxuu ka hadlay ninkaa u soo bandhigay si step by step ah sida la damacsan yihiin dadka inay u gali doonaan ee qaasatan dadka useless classka ka wadaan dadka Afrikaanka ah iyo dadka madowga ah ogaada taas salaamu calaykum